السلام عليكم واتهاي داوديال soo dhawaada asxaabey ku soo dhawaada barnaamijka Layaab qaybtiisa saddexaad daawada marar badan ee isweydiinay sababta askarta Chinese-ku ay si qumaata isugu taagaan oo aysan u nuuxnuuxsan markay digtoonida ku jiraan sababtu waa maxay sababtu daawade waa in irbad lagu dhajiyo shaarkooda isla markaasina irbadaasi waxay ku qasbisaa inuu si toos ah u taagnaado hadiiba in yar hoos fursado cunaha ay ka galaysaa marka sidaas ayaa uu ku taagnaanayaa ilaa uu digtoonida ka baxayo ajiib halkay noo muuqataa waa hoy gacan ku samaysa oo loogu tala galay inay shimbiruhu u hoydaan waxay ku taalaa faras magaalada Lahore ee dalka Pakistan ajiib yaab ya makaag daroogada dib qalooca mid kamid ah maandooriyaasha ugu yaabka badan caalamka waxa kamid ah midka loo yaqaan maandooriyaha dib qalooca waxaana aad looga isticmaalaa deegaanka Peshawar ee dalka Pakistan waxa la gubayaa dib qalooca noociisa madow ka daqiiqo ka soo baxaya la nuugayaa waxaana la sheegaa in daroogadani ay tobolaab ka awood badan tahay hirinta khatarta waxaad ruxmaysaa muddo u dhaxaysa 20 saac ilaa 23 saacadood oo u dhigmaysa maalin dhan walxaha kugu hareeraysan oo dhan ayaa jaasiya sidoo kale xusuusta ayaa ka guuraysa maalmo kooban waxa si ay dadka cabba ajiib halkani waa magaalada Sevilla ee waddanka Spain taasoo gaadiidku ka cabanayaan midhaha geedka liin macaanta oo wadooyin ku soo daata maalin walba xeer ciqaabeedka waqooyiga Kuuriya waxa ka mid ah dambiilayaasha waaweyn qaarkood lagu xukumo xabsi Dayin 3 jiil ah qofka dambiilaha ahi marka uu jeelka ku dhex dhinto waxa la soo xuriyaa caruurtiisa marka caruurtiisu dhimatana waxa xabsi Dayin lagu xukumayaa caruurtii uu ahaa maxaa yeelay waxa laga cabsanayaa inay caruurtaasi ay noqdaan awoogood oo kale Daba-Gaalihii bodybuilder-ka ahaa sawir qaade Swedish ah ayaa sawiradan qaaday wuxuuna yiri Daba-Gaalahan subax kasta beertayda ayuu imaadaa aniguna waxaan ka wahsadaa inaan waxoogaa ordo si aan culayska iskaga rido daawada xubinteena ugu dambeysay barnaamijkeena Layaab sawirkan waxa sawiray farshaxan ruush ah laga yaabaa ugu horeyn inuu kula muuqdo mid cabsi leh ama sawir aan qurux badnayn hase ahaatee sawirkan quruxiisa waxa arki kara kaliya dadka indhayarta ah adiga laftarkaaga laga yaabaa inaad aragto qayb kamid ah sawirkan hadii aad kala bar daboosho indhahaaga waxaad arki kartaa gabadh oo la cadeynaysa daawada halkaas ayaan ku soo koobnaa barnaamijkeena Layaab qaybtiisa saddexaad saan u soo badnaa barnaamijyada noocan oo kala fadlan muuqaalka like saar siina share gareeyo. Assalaamu calaykum.